soo dhawaada caruuray waa mar kale iyo sheekooyinkeennii. Beri baa waxaa jiray 3 doofaarro walaalo ah. Hooyo ayaa wada dhashay 3 doofaar. Dabadeed hooyadood baa meel iskugu keentay waxaana u sheegtay mar hadday waaweynaaday inuu nin walba keligii quuto uu aqal samaysto oo ku noolaado mid walba. 3 doofaar way tegeen. Dabadeed 3 doofaar kii koowaad oo caajis badnaa ayaa waxa uu sameeyay waxa uu yiri anigu ma gaari karay warshadii labanka aan guriga ka samaysan lawaana iga fog tahay marka waxaan sameynayaa wax shaqana qaban kari maayo caws baan soo sameynayaa cawska saan qalkayga ka dhisanayaa si aan geli ka damoon iskaga nasto oo aan wax shaqaaha qaban. dabadeedna kii labaad ee walaalaha ayeen doofaarka ahaa ayaa isaguna waxa uu si leeg sameeyay mid caajis ah waxa uu yiri ma gaari karay warshadii labanka sidoo kii hore yiri warshadii labanka ma gaari karayo waxaan soo qaadanayaa ulahaasan ka sameynayaa aqalka si aan geli ka damoodhan naf iskaga nasto sidii kii hore uu sameeyay ayuu isaguna ku fikiray. dabadeedna ulihii uu soo qaatay ulihii yaryaraa ayuu aqalkii ka dhistay isaguna si aan wax shaqaaha u qaban geli ka damana uu iskaga nasto. ulihii ayuu aqalkii isaguna ka dhistay aad arkaysaan. dabadeedna labadoodaba ciyaarun bay bilaabeen laakiin dambe iska nasanayeen way ciyaarayeen qoob ciyaar fara badan bay sameeyeen. kii saddexaad oo ka caqli badnaa ayaa waxa uu soo qaatay labankii uu soo qaatay isaguna ilaa maalintii dhan uu ku hawlanaa aqalkiisii laban buu ka sameeyay bajaajo aqalkiisii uu ka adeegay kale waxaan uu sameeyay meel dabka lagu shito xabo fara badan oo ka shiday gurigiisa saan arkayno uma eega guriga kale ku qurux badan. maalintii dambe ayaa Yeygii wadadii soo maray wadadii waxa uu ka arkay doofaar. marka uu arkay raadkii doofaarka ayaa uu gurigii hor istaagay. Yeygaas aad buu gaajaysnaa guriga cawska ka samaysnaa markii uu hor istaagay ayaa uu gudihiisii ku garaac doofaarrow war doofaarrow aad ayaa ugu qayliyay war doofaarrow marka urtii uriyay ayaa uu dhacaa waxaan helay shamcaan kadibna waxa uu aad ayaa ugu qayliyay si albaabka uga furo war doofaarrow iga furo albaabkan soo galay. maya taasi ma dhacayso kaa furi maayo xaqiiqatan. aad ayaa ugu qayliyay ilkihiisii aad bay ugu afuufay war waan ku afuufi haddana waan ku afuufi markaasuu afuufay gurigii dabeeshii ayaa u raacay. Yeygii aadka u gaajaysnaa ayaa afka ayaa uu xoog u kala qaaday dabeedna uu ka daba cararay si wanaag doofaarkii yara ma uu gaadhin. dabeedna gurigii walaalkii doofaarkii kale ayaa uu ka galay gurigii bay labadoodiba ku wada jireen. doofaarkii ayaa haddana raad koray dub ayaa uga soo daba cararay gurigii labaad ayaa u soo daba istaagay. dabeedna waxa uu uriyay labadii doofaar. dabeedna aad ayaa u gaajaysan yahay weli waanu xiiq dhamaystaan arkayno dareerkana dhulkuu kaga wada dhacay waa uu ku garaacay. dabadeed albaabkii war doofaarada yaryarow iga furo albaabkan soo galay. maya taasi ma dhici karayso xaqiiqatan. dabadeedna waxa uu ku yiri war waan afuufi haddana waan afuufi gurigii dhulka aan la simi waan afuufi haddana waan afuufi gurigiina dhulka ayaan la simi labadii doofaare yaryaraa gurigii waa uu ka qaaday dhulka ayaanu la simaysa aad arkaysaan. labadii doofaar baa uu yiri qabo laakiin Yeygii waa uu guri weynaa waanu qaban kari waayay labadoodiba. marka uu dhereeriyo afka aad u kala qaaday qaniyadiina mid quran lama uu tiigsan. labadii doofaar yaryaraa waa ay ka yaaceen waxayna u galeen doofaarkii kale ee saaxiibaha ee walaalkii ahaa ee gurigooda labanka ka samaysnaa. nasiib daran mar labaadna wuu qaban kari waayay. labadii doofaar iyagoo yaacaya ayay gurigii kala galeen
lebanka ka samaysnaa. Albaabkii ayaana soo xidheen, waanu qaban kari waaye. Waxaana saddexdii doofaar yaryar isku urursadeen gurigii. Dabadeedna waa uu soo raad guray. Haddana gurigii kale lebanka samaysnaa ayaa uu soo hor istaagay. Waxaanu arkayno doofaarkii markaa aad ayaa uga shaqaysay dareemadiisii, aadna ayay isku gaajaysay. Maalintoo dhanna wuu gaajaysnaa. Dhammaantood saddexdii guryihii ayay hoosta kaga jiraan. Waxa uuna ogaaday inay dhinac kale oo albaabka guriga ka daloosho, dhinaca qeyb guriga albaabku uga baxo. Dabeedna Yeygii ayaa albaabkii markaa soo istaagay, waa uu garaacay. Waar doofaarada yaryarow, waar doofaarada yaryarow, doofaarada yaryarow, iga fura aan soo galay, iga fura aan soo galay. maya taasi ma dhacaysa xaqiiqatan. Albaabkii kadib ayaa waxa uu wiilkiisii aad u kala qabtay. Waxa uu yidhi waan afuufi, oo haddana waan afuufi, oo waan afuufi, oo dhulka ayaan la simi, oo waan afuufi, oo haddana waan afuufi. Nasiib darro, laakiin gurigani leban ayaa uu ka samaysan yahay, waanu afuufi kari waayey. Awood badan uu dabaysha ku raaciyana ma uu awoodin. Ugu dambeyntii neeftii ayaa ka dhammaatay Yeygii. Dabeedna wax allaaliya wuxuu sameeyuu waayey. Dabeedna gurigii ayaa xag dambe ka wareegay. Sidaasaanu arkayno gurigii xag dambe markaa uu ka wareegay ayaa uu is yidhi xag dambe uga soo dhac. Yeygii run ahaantii aad buu uga xanaaqay. Waxa uu ugu dambeyntii la kulmay aanu kana filanayn. Maanta waxa uu islahaa waad ku xashaynaysaa doofaarada yaryar. Dabeedna saddexdii doofaar way yaabayiin, waxay sameeyaan bay garan laayeen. Laakiin dab ayay halkan uga shideen, digsi weynna way saareen. Aad iyo aad ayuu karkarayaa dabkani. Dabeedna Yeygii baa is yidhi halkaa ka soo dhac. Waxaanu arkay meeshii digsidii ayay daboolkii afigoo qaadeen. Dabeedna waa kaa ku dhacay, digsidiina way ku dul dabooleen. Waxaa ku dhammaaday sheekadii saddexdii doofaar iyo Yeygii.